horta gabadheena walaasheena Farxiyo Fiski dambigeeda Allah dhaafo weliga miyaad maqashay weedha sheekha daaciga ah ee loo garan ogyahay Kenyawi iyo gabadha heesaaga ah ee Farxiyo Fiska ayaa horey u wada aqalgalay ama waqti ka mid ah noloshooda isku noqday nin iyo xaaskiisa caruurna isku dhalay hala yaabin su'aalaha jawaabtooda waxaa ku siin doona daaciga weyn ee Sheekh Kenyawi ayba haddana daaweynay anaga oo dhahaya fa'fu anhum marna dhahay wal ya'fu wal yasfa'u waxaan arkaysadeen la dulmay ajran ku raadsanaa waxa ilaahay magaceena kor ugu qaaday oo ilaahay dambigeena ku dhaafayo way waan ogahay haddii markii kugu horreyso aad weedhaasi maqasho ay ku tahay waad la fajacaysaa ciwaanka waxaan aniga ku hadlayo sawirrada ama muuqaalka intaba balse muuqaalkan oo daqiiqadihiisu ay kooban yihiin ayaan daaha uga qaadi doonaa ka jawaabidda su'aalo badan sida maxaa ka dhexeeya sheekha daaciga ah ee Kenyawi iyo gabadha heesaaga Farxiyo Fiska maxaa ka jira in Sheekh Kenyawi uu markii hore dalka Ingiriiska geeyay Farxiyo Fiska kadibna ay fanaanadu u xarka goosatay dhanka iyo fanka sheekhan ay inkartay wararka laga sheego labadan shakhsi ee la isla dhaxmaro iyo xaqiiqada inay caruur isku dhaleen balse intaana gudagelin muuqaalka Sheekh Kenyawi oo su'aalaha kaaga jawaabi doona like saar muuqaalkan si fariinta Sheekh Kenyawi ee meel walba u gaarto like inaad muuqaalka saarto waxay ka dhigan tahay inaad page-ka sare oo kiciisa qayb weyn ka qaadatay si share garay kuna soo bir page-keena oo follow dheh si aysan ku dhaafin barnaamijyadeena mahadsanid ajaanqaadkaaga in ilaahay ma aragtay waxaan aad ku dhex jirtid inuu ilaahay ka madoobeeyo irsaaqada heesaha aad ka qaadatidna ilaahay waxaan ka bariyay in taas maahan mid kale oo ka wanaagsan oo xalaal ah ku dhowrsoon tahay ubadkaaga iyo reerkaaga ilaahay kugu soo celiyo adduunka ilaahay kugu ilaaliyo aakhirana janno kugu geeyo inuu ku siiyo meel aadan fiileen inuu ilaahay ka irsaaqo mid xalaal ah oo ilaahay raali ka yahay diintaadii iyo quraankaaga iyo xijaabkaaga runtii inaad u soo laabatid aad waa ku jecelahay sanado badan waxaa jirta hadal been abuur u muuqda kaasi oo Soomaalida qaarkood ay isugu sheekeeyaan hadalkan qof ayaa iska aliftay markii hore in Sheekh Kenyawi iyo Farxiyo Fiska ay lamaano muddo soo wada ahaayeen caruurna isku dhaleen Fiskana ay sheekha ka doorbiday fanka waa hadal la sheego oo hore loo weysanaa cadeyntiisa balse su'aal walba sheekadan la xiriirto aan kor ku soo xusay waxa kaaga jawaabi doona Sheekh Kenyawi oo cadeynaya waxa ka dhaxeeya isaga iyo gabadhan Soomaaliyeed horta gabadheena walaasheena Farxiyo Fiski dambigeeda Allah dhaafo runtii gabar aad u wanaagsan waa weligeed lama aanan kulmin Ingiriiska uu geeyay leeyahayna weligeed Ingiriiska ma aanan tagin Yurub kale aan tagay baasaboorkayga Kenyan waay waa la idulmay oo gabar aanan qabin baa yiri waad guursatay shan cunugo aanan dhalin baa madaxa la ii saaray gabar aanan dambi ka gelin oo aanan ilmaheedii qaadanin ayaa yiri waad ka qaadatay laakiin sida aniga la ii dulmay ayaa walaashay الله دوري إيدنا الله ظلمي سو ما قرن مركا وحان لي هاي كل أنا جوان صبري سو ما قرن بحاجة لي رسولك العاجي أو ساحر لي أو وحول بلغت المامي نبي موسى زاني وهاي اللي يريو قبر انت بيعمل وسوري ما ده الله صاري لكن إلهي بعدنا نداوينا أنا ضحايا فاعفوا عنهم مرنا ضحايا وليعفو وليصفعوا وحان أدركي سيدنا للظلم أجرا كراتنا وح إلهي مقعين كرو قاضاي أو إلهي دنبيجين كرافاي واي ولا شيء وحان ليهاي حديدي وداد آذن قبن ماذا على جوزاريه رالي نقو والله ظلمي وأوجهاي الله كوستو intuu waraysigan bixinay Sheekh Kenyawi wuxuu sidoo kale fariin u diray Farxiyo Fiska iyo fanaaniinta kale ee Soomaalida wuxuu si gaar ah Fiska ka codsaday in fanka ay ku bedelato waxyaabo kale oo ka sii wanaagsan وحيرنا وحنو جيدنا حمان رنتي كوموغي لكن وحن آد فرحيو عن آد وجعلان لها إن دي والدكي دين تكو بري قرآن كو حفظي هذا قرآن آخرنا يكو عركي تتبضنوا على شاكيستين إن قرآن كلو دمي حوق لغو قليي دين تا وعلى شاكيستين وان مغلي إن إلهي ما ركتاي وحان أتكو دي حجرتين إنو إلهي كان بذوبيو إرزاق ذا هي صح أتكا قادتين إلهي وحان كبريي إن تاسمع هني متكالو
wanaagsan oo xalaal ah ku dhowrsoon tahay ubadkaaga iyo reerkaaga ilaahay kugu soo celiyo adduunka ilaahay kugu ilaaliyo aakhirana janno kugu geeyo inuu ku siiyo meel aadan filayn inuu ilaahay ka irsaaqo mid xalaal ah oo ilaahay raali ka yahay diintaadii iyo quraankaaga iyo xijaabkaaga runtii inaad u soo laabatid aad waa ku jecelahay inta fanaaniin inta soo dhadhabaalku waa u dirayaan marka farxiya aniga xaas ima noqonin waa laga yaabaa wadaad kale inuu ahaa aydan barakeeyo ka hara gabdhaha ka hara iyo culimadaba yeelkeedii muuqaalkan ayaa cadeen u ah inay been abuur tahay in la isku soo qabto laba shakhsi oo ku kala jira laba qaanadood oo aad u kala gedisan sida daaciga Soomaaliyeed ee Sheekh Kinyaawi iyo Farxiya Fiska oo ah gabar haysaa ah oo inta badan Soomaalida ay wada garanayaan ilaa idamaadka haddii aad nala joogtay oo laga yaabo in aragti ahaan sheekadan aad hadda ka hor maqashay laakiin aad jawaabteeda hadda heshay iyo haddii sheekadaba guud ahaanteedba aad la yaabtay fadlan muuqaalka laag saar si uu saaxiibo badan u gaaro inaad laag saarto muuqaalka waxay ka dhigan tahay inaad sare u kaca beejka qayb weyn ka qaadatay ha hilmaamin oo laag saar muuqaalkan sidoo kale beejka follow dheh si aysan kuu dhaafin sheekooyinka ugu xisaab badan ugu dambayn sii sheer garay ku mahadsanid la jaanqaadkaaga